warqad sir ah oo la helay kana soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa markhaati cad u ah in weerarkii Tukaraq ay soo qaadeen madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisu. warqadan oo ah mid rasmi ah oo sir ah kana soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland Mr. Gas ayaa waxa ay cadeynaysaa in isaga iyo Farmaajo ay ka wada socdeen xogaha ay u cuskadeen in weerar lagu qaado ciidamada militariga Somaliland waxaana warqadu cadeynaysaa in ay aaminsanayeen in ciidamada Somaliland loo qaadi doono dhinaca caasimadda si ay dabaaldega uga qayb qaataan waxaanay u qorneed warqadu sida tan mudane madaxweyne waxa aan rabaa inaan warbixin kooban ka siiyo hawlgalkii Tukaraq ee maalintii Talaadada 15 bishii shanaad 2018 sidoo kale kula socotiyo arrimo door ah oo halkaasi ciidankeenu kala kulmeen iyo in xogta qorshaheenu ku salaysnaa ay ahayd mid aan sax ahayn ayuu yiri Cabdiweli Gaas oo warqadan u diray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ma dhicin in ciidamada cadowga ee Tukaraq ku sugnaa ay u baxeen galbeed si ay uga qayb qaataan dowlatusyadii maalintaasi dhacay laba ayuu yiri qalabka cadowga oo u muuqday mid casri ah taasoo dhaawaca furinta laga keenay aan ka soo saarnay xabado 5.5 NATO ah saddex in Tukaraq ay ka dagaal galeen ciidamo haysta tababaro shisheeye oo ka tirsan unugyada RRU iyo SPU haddaba mudane madaxweyne ayuu yiri Cabdiweli Gaas iyagoo oo ay jiraan qodobada aan kor ku soo xusay iyo waliba in cadowgu ciidamo xoogan ka soo wado galbeed ayaa waxa loo baahan yahay gurmad degdeg ah si reer Puntland ay u arkaan in dawladda federaal ay taageero buuxda ka haystaan hogaanka ciidanka waxay ugu wargeliyeen ayuu yiri Mr. Gas in ay qabaan baahida hoos ku xusan 15 ilaa 20 kun oo ciidan ah inay u baahan yihiin laba taangiyo iyo gaadiid gaashaaman saddex 30 milyan oo lagu guneeyo ciidanka laguna abaabulo beelaha deegaanka afar in ergeyga gaarka ee qaramada midoobay lagala tashado in la baaro halka hubka uu uga imaanayo cadowga isagoo ula jeeda Somaliland warqadan oo ku socotay Mr. Farmaajo madaxweynaha kooxda Muqdisho ayaa waxa qoray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas waxaanu kaga dalbanayay taageero dheeraad ah waxa kale oo ay cadeysay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya Cabdiweli Gaas ay ka wada socdeen weerarkii lagu soo qaaday ciidamada Somaliland iyagoo u arkayay in ciidamada Somaliland laga saari doono jiida hore lana geyn doono magaalooyinka si ay uga qayb qaataan dabaaldegyada 18 May taasina way beenowday waxaanay arkeen in ciidamada Somaliland ay meel kasta oo dalka Somaliland ay joogaan weerarkoodina oo sidaasi ku guul daraystay Badruddin Maxamed Xasan telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa